waxaa mahad ilaahay kasoo waxaan caawa inta u fadhinaa shirkan jiraayad aan u qabanay xaaladaha muddooyinkan ka jiray koonfur galbeed qeyr Allah siiyo odayaasha dhaqanka uu hogaaminayo chairmanka gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka Suldaan Buube ayaa isbuucyadanba waxaan wadnay consultation iyo wada hadalaan wadnay xaaladaas anagoo iska wareysanayna marka waxaa dhacday in maalintii ciida ahayd Jimcaha ayaa shir waxa isugu wacay suldaanka odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda koonfur galbeed ee ku sugan magaalada Muqdisho jimcihii waxaan soo nimid casirkii ayadoo ciid ay tahay ayaan soo nimid ilaa habeenkii 3 habeen aan wada fadhinay waxaa la isku waafaqay xaaladda meesha ka jirto inaan aragno sida suldaanku u sharxay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Shaadan oo ah maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka dalka isla markaasna deegaan doorashadiisa ay tahay koonfur galbeed kadibna aan raadino madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa dhacday marka waxaan la kulanay sidoo suldaanka sheegay habeenkii aan raadinay madaxweynaha oo Jimcaha ee Sabti soo galeysay maalinta Jimcaha habeenkii Sabti soo galeysay isla Sabtigii galabtii 10 saac madaxweynaha la kulanay Xasan Sheekh Maxamuud si fiican oo noo qaabilay anagoo 18 oday dhaqameed ee koonfur galbeed ka soo jeedo waxyaalahan ka codsanay sidoo suldaanka sheegay waaye in xaaladaas annaga nagu simo muddo 4 casho ah madaxweynaha aad u soo dhaweeyay isla markaan ka soo baxnay waxaan maqribkii aan la kulanay gudoomiyaha baarlamaanka Shaad Madoobe intaas in la mid aan ka codsanay asigana anagoo og in xaalado badan iska jiraan oo siyaasado iska cakaran gudoomiyahan aad iyo aad ayuu soo dhaweeyay isla subaxii ku xigtay 4 saac subaxnimo habeenkii ayaa wuxuu Suldaan Buube la xiriiray gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cali Saciid Fiqi oo warbixinta siiyay una sheegay in madaxweynaha u baahannahay Cali Saciid qeyr Allah siiyo dadaalay asigana wuxuu xooga saaray madaxweynaha Laftagareen iyo annaga inaan wada kulanno communication telephone aan ku wada hadalno suldaanka la hadlay Cabdicasiis Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed aad iyo aad ayuu soo dhaweeyay baaqaas marka anagoo og xaalado kale inay jiraan dhaqdhaqaaq ciidan labada dhinac inuu jiro ayaa waxaan codsanay waxay ahayd maalin Sabtiga ayaa madaxweynaha la kulanay waa Axad iyo Isniin 2 casho la joogaa 2 casho wuxuu Ilaahay noogu hirgeliyay inaan waxyaalo badan aan soo dhaweyno arinku weeyna waxay tahay in labada dhinac ay noqotay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waraaq inay soo saartay asi waraaq uu soo saaray guddiga doorashooyinka ciladahaas in maaragtay culeysyo badan naga soo koray odayaasha waxay xooga saareen aan ku laabanay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanay in odayaasha dhaqanka koonfur galbeed loo sii access inay isu keenaan reer koonfur galbeed gogolna ay dhigaan baydhabo mucaarad iyo muxaafid reer koonfur galbeed isugu yimaadaan xukuumadda Cabdicasiis Laftagareen uu hogaaminayo iyo mucaarad muxaafid odayaasha isu keenaan walaayadiina lagu wareejiyo odayaasha kadibna gogosha ay dhigaan dib u heshiisiin meesha ay ka sameeyaan reer koonfur galbeed doorashada isku raacaan oo technicality nooc kasta ay noqoto in madaxweyne Xasan Sheekh uu nala qaato waxa uu weyn ay tahay si looga hortagi lahaa dhiigaas meesha ku daadanayo waxaan arkaynaa qof kasto siyaasi ah wuxuu arkayaa kursigaas shacabka uu hadda sheegay waa Nuur Shaakow daruufaha jiro meesha jiro waan arkaynaa marka taasaan xogaho qaadan weynay annaga waxaan ka mid nahay odayaashii 135 dowladda federaalka soo dhisay u soo dhawr adeegay dad qaarkood god ugu jiraan koonfur galbeed dadkii soo dhisan ka mid nahay marka anagu arkayna koonfur galbeed indhahayna shanta ah inay meesha ku burburto waxaan ogolaan karin cidna aanan ka yeeleynin ilaah ka sukow waxaan ilaah ka bareen inuusan maaragtay ilaahay nagu ceebeen dadka hadda isku haya siyaasadana waxaan ka codsanay labada dhinacba dowladda federaalka waa la hadalnay Cabdicasiis Maxamed Laftagareen waa la hadalnay oo koonfur galbeed labada madaxweyne aad iyo aad u soo dhaweeyeen taladeen tusaaleheena shucaacyo badan ay jiray waxaan ku dadaalnay in shucaaciyadaas si loo safeyn karo loo safeeyo wax kastan waqti bay qaadanayaan berito wixii dhici kara Allahu a'lam ilaaha og laakiin ballanqaadka ee naga ballanqaadeen waxa kamid ah in odayaasha gogol ay dhigaan hadda u dambeysay madaxweyne Cabdicasiis u dambeeyay hadda uu Suldaan Buube la hadlay madaxweyne Xasan Sheekh maanta la hadalnay labadan aad soo dhaweeyeen marka waxaan rajeynayaa insha Allah berito wixii ka dambeeyay inaysan wax dhaqdhaqaaq ciidan dhicin Cabdicasiisna uu meesha hadda taagan yahay uu taagnaado dhaqaaq kale uu sameeyay xukuumaddan aysan dhaqaaq kala sameeyeen odayaashana ayagu uu hogaaminayo mucaarad muxaafid iyo qof ka soo daneynaya kursigaas baydhabo tagaan gogol dhigaan dadka isu keenaan ee wada tashtaan marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasaan dhihi lahaa